السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي qiimaha badan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkan subscribe inoo saar, muuqaalkana like saar, qaybta hoose commentiskana inoola wadaag wixii fikriyo faalaah iyo dhiirigelinba. Mahadsanid. Waxaan rabaa maanta inaan hambalyo hordhac ah idin siiyo iyo talo ku aadan bisha barakaysan ee Ramadaan ee nagu soo foodleh. Sidaan wada ognahay, bisha Ramadaan waa bil barakaysan sidee diinteena suuban inoo sheegtay, waana bishii uu Quraanka Kariimka ah uu soo degay. waa bishii naxariista, waa bishii uu Ilaahay ka xoreynayay adoomadiisa naarta, waa bil macno weyn oo ugu fadhisa dhammaan muslimiinta. intaas markaan ka soo gudubno, waxaa haboon inaad ka faa'iideysato bishan khayrka badan. waxaad u baahan tahay inaad samayso dadaal dheeraad ah xagga cibaadada. taasina waxaad ku suuragelin kartaa inaad samaysato jadwal cibaado oo ku khaas ah, sida inaad quraan akhris badan samayso si aad dhowr jeer u dhamayso bishan gudaheeda. tusaale, haddii aad maalin walba akhriso hal jalaad, isbuucii waxaad dhamaynaysaa quraanka 7 mar, ama se inaad maalintii akhriso 3 juz, taasoo ka dhigan inaad bisha Ramadaan 3 jeer dhamayso quraanka. muhiimadu waa inaad samaysaa dadaal oo aad akhrisaa quraan badan intaad awoodid, 1 jeer, 2 jeer, ilaa intii karaankaaga ah. waxaana taas ku sahli kartaa inaad salaad walba gadaasheed u qoondeyso quraan akhris. haddii aad salaad walba gadaasheed akhriso 4 baal, waxaad awoodaa inaad maalintii 2 juz akhriso, taasoo ka dhigan 2 jeer inaad dhamayso bishii. waa inaad samaysataa jadwal aad awoodo si aysan kuugu cuslaan cibaadada, taasoo ka dhalan karta inaad ka cagajiido oo aadan ka dhabayn hadafkaaga. mar waliba jadwalkaaga waa inaad ku salaysaa nolol maalmeedkaaga. taas waxaan oola jeedaa, waxaa suuragal ah inay fursadaadu yar tahay oo maalinkiioo idil aad ku jirto shaqo ama waxbarasho ama mashquul kaleba. taasoo jirto waxaa macquul ah inaad jadwalkaaga ka dhigato mid adag. taasina waxaa ka dhalanaysa inaad dhibsato, waayo naftu waxay u baahan tahay nasiyo inay hesho. sidaa awgeed waxaa noloshaada u qorshaysaa waxaad awoodo. haddaan usoo laabto fadliga Ramadaanka, waxaa ku jirto habeen ka qiimo badan 1000 bilood. waa habeenka Laylatul Qadriga, waa habeenkii uu soo degay Quraanka Kariimka ah. waxayna ku jirtaa bisha Ramadaan, khaasatan 10ka dambe, khaasatan maalmaha kinsiga ah sida 21ka, 23ka, 25ka, 27ka iyo 29ka. ku dadaal sidii aad ku heli lahayd habeenkaas. waa habeen camalka samaysid uu ka qiimo badan yahay 1000 bilood camalkii aad samaynaysay. isku day inaad habeenadaas oo aan soo sheegay ee lagu qiyaaso in habeenkan uu ku dhex jiro inaad soo jeedo oo aad cibaadaysato, waayo habeen sanadkii oo dhan hal mar la arko. qofkii la kulmana uu Ilaahay siiyo abaalmarin ballaaran, camalkuu sameeyana uu ka fadli badan yahay camalada uu samayn jiray habeenada kale. sidoo kale bishan waxaan uga faa'iideysan karnaa inaan badino sadaqada. nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu ahaa mid sadaqada badiya, uu ku dadaala bisha Ramadaan. wuxuu ugu dadaali jiray si uusan ugu dadaalin bilaha kale. wuxuu bixin jiray sadaqo badan. bishan waa bil sanadkii hal mar timaado, waxayna sidataa khayr fara badan. haddii ay ku dhaaftana adigoonan ka faa'iideysan, waa khasaaro naftaada u sugnaatay. ma jirto cid ku ballan qaadi karto inaad gaarayso sanadka xiga. imisaa sanadkii hore kula soontay oo aan sanadkan dunida joogin. waxaad haysataa fursad fiican. wuxuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey fursad aad ku sii noolaato. haddaadan fursadan ka faa'iideysan, waxaad ka shalayn doontaa maalin ay shalayto wax aysan ku tarayn. bishan waxaa la furayaa dhammaan albaabyada jannada, waxaana sidoo kale la xirayaa dhammaan albaabyada naarta, taasoo ka dhigan inaad haysato fursad aad u ballaaran oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyay. ugu dambayn, Allah naga dhigo kuwii ka faa'iideysta bishan barakaysan oo ku dhamaysta nabadqab iyo cibaado. ilaahay naga dhigo kuwii laga xoreeyay naarta loona naxariistay. ilaahay soonka iyo salaada iyo sadaqadaba ha naga aqbalo. ilaahay hamigeena intasan hanoo rumeeyo. ugu dambayn, saaxiibayaal, waxaan jeclaystay inaan muuqaalkan idin soo gudbiyo. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen. sidoo kale waxaan jeclaan lahaa in qaybta hoose commentiska inoola wadaagtaan wixii aad jeclaan laheedeen inaan idin soo gudbino bisha barakaysan ee Ramadaan inta lagu guda jiro. muuqaalkanna u sheergaray asxaabtaada iyo dadka kugu dhow si ay uga faa'iidaan. like-na saar si uu dad badan u gaaro. sidoo kale subscribe inoo saar kanaalka si aan u gaarno hadafkaan ka leenahay kanaalkan. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.